tababarihii hore England ayaa noqday tababarihii ugu horeeyay ajnabi ah ee hogaamiya xulka qaranka ragga. Wuxuu 3 libax soo maamulay 3 tartan oo waaweyn intii u dhaxaysay 2001-2006 wuxuuna qaranka ku hogaamiyay 3 tartan afar dhamaadka ah. Swedishka ayaa horaantii sanadkan ku dhawaaqay sida ugu fiican oo hal sano uga haray inuu noolaado kadib markii laga helay kansarka. Steve Goran Eriksson oo u geeriyooday qoyskiisa ayaa ku yiri bayaan ay soo saareen maanta. Xanuun dheer kadib Eriksson wuxuu ku dhintay subaxnimadii guriga isagoo ku hareeraysan yihiin qoyskiisa. Dadka ugu dhow oo barooranaya waa gabadhiisa Lina, wiilkiisa Johan oo dhashay, xaaskiisa Amanda iyo gabar ay u tahay oo lagu magacaabo Sky. Steven Eriksson, saaxiibtiisa Inezeta iyo wiilkiisa Alexis, walaal Erik, xaaskiisa Jumang ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay qoyska. Intii uu guli jiray xirfadiisa maamuleed ku saabsan 41 sano, Eriksson oo soo maamulay 12 kooxood maxalli ah ay ku jiraan Manchester City, Leicester City iyo Lazio. Lazio kula guuleystay 18 koob ay ku jiraan 1999 Serie A iyo Super Cup-ka. Ugu dambeyn wuu geeriyooday mid ka mid ah halyeyadii lagu jeclaa xulka 3 libax.